إذا فيوبي سمعك مدوهني قرنك الاسم ييركا صدق حقيقة ييركا لما يصير ما ييركا ولا قد شيء ييركا إبريا نرك بيركا قرنك الاسم ييركا صدق حقيقة ييركا لما يصير ما ييركا shidaalku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha loogu isticmaalka badan yahay ee ay dibadda ka soo dhoofsato Soomaaliland marka laga yimaado kumanaanka gaadiidka ah ee ay adeegsato bulshadu isla markaasina isticmaala shidaalka waxa ku xidhan qaybo badan oo kamid ah nolosha bulshada Soomaaliland sida shirkadaha laydhka iyo warshadaha wax soo saara oo adeegsada halkani waa xarunta shaybaadhka shidaalka ee wakaaladda shidaalka qaranka sanado badan waxay gacanta ugu jirtay dad shacab ah iyo ganacsato madax bannaan waxay dib ugu soo noqotay gacanta dawladda sanad kadib curashadii xukuumadda madaxweyne Biixi laakiin markay dawladdu gacanta ku qabato xukuumaddu gacanta ku qabato waxa ka fikiraysaa dantii guud ee ummadda marka talo kale marka eegto mesela shaybaadhkan oo kale waxaad ogaanaysaa mesela inay keeni karto gaas xun petrol xun nafto xun waxa soo dhan baa dhici kara laakiin laboratory wuxuu qiyaasayaa inuu waddanka galo gaas amba shidaal aad iyo aad u safaysan aad iyo aad qiimo u leh oo aan dhibaato u geysan bay'ada aan dhibaato u geysan dariiqada marka la marayo oo aan dhibaato u geysan baabuurta oo ay wax kasta noqdaan si haboon oo isbuusa oo ku haboon deegaanka xukuumaddu iyadoo ka duulaysa baahida loo qabo shaybaadh qaran oo qaabilsan hubinta tayada shidaalka dalka soo gala ugu horeyn waxay dhistay dhismo weyn oo u diyaarsan hanaan shaybaadh shidaal oo daleeyahay sidoo kale waxay ku samaysay casriyeyn iyo qalabayn iyadoo u dhamaystirtay dhammaan qalabkii uu shaybaadh u baahnaa waxaana laga hawlgeliyay khubaro aqoon durugsan u leh shidaalka iyo ilaalinta tayadiisa Basically we test diesel, that's gas oil, and petrol or gasoline for the purpose of controlling the quality of petroleum coming into the Republic of Somaliland. markan Somaliland waxa soo gala shidaal la hubiyay tayadiisa isla markaasina gaarsiisan heerka hubinta ee caalamiga badqabka gaadiidka makiinadaha loo isticmaalo shidaalka iyo deegaankuna waa mid sugan. Our results are very much reliable and they can be tested anywhere else and find that we actually conform to international practice of testing petroleum products. Thank you.